Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal, maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago taariikhda dagaal ee Masar iyo Itoobiya. Taariikhda dagaal ee Masar iyo Itoobiya ma ahan mid hadda bilaabatay, waa mid soo jireen waxaana jira dagaalo badan oo labada dal soo dhex maray. Sababaha labada dal dagaalo soo jireen u dhex mareen waxay ahayd xuquuqda webiga Niilka. Waxay taariikhda dagaal ee Masar iyo Itoobiya ka bilaabanaysaa markii dowladda Masar ay soo gashay saaxadda awoodda military kadib markii la aasaasay dowladdii cusbeed uu madaxda ka ahaa Maxamed Ali Baasha sanadkii 1805, taasoo ahayd waqtigii gabaldhaca boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo dalkaasi waqti badan soo xukumi jirtay. Bartamihii qarnigii 19aad, suldaankii Masaarida ee Ismaaciil waxa uu bilaabay inuu dhiso boqortooyo weyn oo ka talisa Geeska Afrika, gaar ahaan isha webiga Niilka. Sidaa darteed waxa uu aasaasay ciidan weyn oo hogaaminayaan qaar ka mid ah cadaankii reer Yurub. Waxaana dhacay laba dagaal oo la oran jiray Gonda iyo Gora. Waxay ahaayeen dagaaladaas xilligaasi dhacay laba dagaal oo aad u daran, khasaarana u geystay Masaaridii, iyadoo Itoobiyaanku xilligaasi si weyn ugu guuleystay dagaaladaasi. Waxayna dhaceen dagaaladaasi sanadihii 1874 ilaa 1876. Masaaridu bishii September sanadkii 1874 dekedda Kasaale ee waddanka Suudaan waxay ka dhoofiyeen ciidan Masaariya oo gaaraya 1200 oo askari, iyadoo uu hogaaminayay sarkaal reer Switzerland oo la oran jiray Musangir. Waxayna qabsadeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Itoobiya. Sanadkii 1975, ciidamo kale oo Masaariya uu hogaaminayay korneel u dhashay Denmark oo la oran jiray Soran Arandab ayaa waxay qabsadeen deegaanka Genda. Waxayna erga u direen boqorkii lixaad ee Itoobiya iyagoo ka doonayay in uu qaybiyo xuduudaha. Laakiin waxaa gaaray boqorkii Itoobiya fariin sheegaysa inay Masaaridu qabsadeen dhul Itoobiya leedahay. Markaasina waxaa la xiray fariinsidihii ka socday dalka Masar. Isla markiiba boqorkii Itoobiya ayaana ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Masaarida. Ciidamada Itoobiya ayaa ka warhelay in ciidanka Masaarida xoojinayaan awoodda ciidan ee gudaha Itoobiya. Isla markiiba ciidanka Itoobiya ayaa daban u dhigay meel u dhow magaalada Adwa, waxayna halkaasi kaga adkaadeen ciidankii Masaarida ee uu watay sarkaalkii Musangir iyo dhammaan ciidamadii uu hogaaminayay. Taariikhdu markii ay ahayd 1875, waxaa kaloo ciidamadii Itoobiyaanku weerar ku qaadeen ciidankii uu hogaaminayay korneelkii Arandab oo ku sugnaa deegaanka Gondeb xilligaasi. Waxayna la yaabeen ciidamadii Masaarida iyo cadaankii hogaaminayay ciidankii Itoobiya oo hub qori ah ku dagaalamayo. Isla markaana waxaa dagaalkaasi lagu dilay hogaamiyihii dagaalka ee la oran jiray Arandab iyo ciidankiisii. wax yar ayaana ka badbaaday ciidankii Masaarida. Faransiiska ayaa gurmad u fidiyay ciidankii Masaarida, dhaawacoodiina u qaaday qunsuliyadiisa. Guuldaradii Masar ka soo gaartay dagaalkan kadib, haddana waxay Masaaridu abaabuleen dagaal kale oo la oran jiray Gore. Ciidamada Masar ayaa diyaarsaday 20,000 oo askari si ay dagaal labaad ula galaan Itoobiyaanka. Sanadkii 1876, waxaana dagaalkani hogaaminayay Maxamed Ali Baasha iyo jenaraal karoon Mareykan oo la oran jiray William Lowry. Halkaasi oo Masaaridu ku gudbeen deegaanka Gora ayna xerooyin ka samaysteen halkaasi. Laakiin ciidamadii Itoobiya oo ka kooban 200,000 oo askari ayaa weerar ku qaaday xerooyinkii ay samaysteen ciidankii Masaarida. Waxayna Itoobiyaankii khasaaro culus gaarsiiyeen ciidankii Masaarida ee weerarka soo qaaday. Haddana mar kale waxaa gurmad u fidiyay ciidankii Masaarida Faransiiska oo dhaawacoodii Masaarida u qaaday dekedda Massawa. Taariikhdii dagaal ee soo martay labada dal uma muuqan mid dhammaatay, laakiin waxa ay ku reebtay xiisado weli dhex yaala labada dal ee Masar iyo Itoobiya. Sidaa darteed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka dhawaajiyay hadal u eg inuu ku baaqayo dagaal. Waxa uuna yidhi, haddii loo baahdo waxaan abaabuli karnaa malaayiin dagaalyahano Itoobiyaan ah. Wuxuu kaloo sheegay inay dagaaladu faa'iido u lahayn labada dal. Biyo-xireenka ay ka dhisaysa Itoobiya biyaha buluugga ah ee Niilka waa wax sababtoo ah lagana baqayo in dagaal ka dhex dhaco Itoobiya iyo Masar, maadaama ay Masar ku guuldareystay inay la gashay Itoobiya heshiis ilaalinaya xuquuqda shacabka Masaarida ee tiradoodu kor u dhaafaysa 100 milyan. Masar ayaa sheegtay haddii la xiro biyo-xireenka biyaha Niilka ay soo wajahayso biyo la'aan daran. Isbeddelka biyo la'aanta ee ku imaan karta dadka reer Masar mustaqbalka dhow ayaa sii xoojinaysa xiisad taagan, waxaana laga baqayaa dalka Masar biyo la'aanta iyo gaajada halkii ugu xumayd inay gaarto. Biyo-xireenka Itoobiya waa biyo-xireenka ugu weyn qaaradda Afrika iyo kan 10aad ee dunida. Waxa uuna ku yaalaa xuduudda Itoobiya iyo Suudaan masaafo dhan 40 mitir. Itoobiya ayaa doonaysa in biyo-xireenka hal mar la buuxiyo, halka Masar ay doonaysa in kiskis loo buuxiyo. Waana waxa labada dal ay ku heshiin la'yihiin.
Marka la fiirinayo labada dal awoodda xagga ciidanka Masar iyo Itoobiya, Masaaridu waxay aad ugu fiican tahay dhan kasta xagga ciidanka Itoobiya, maadaama Itoobiya looga fiican yahay ciidanka cirka aysan lahayn ciidan bad. Waxaana awoodda milatariga Masar loogu qiimeeyaa dalka sagaalaad quwadda milatariga ee caalamka, halka Itoobiya tahay dalka lixdanaad ee awoodda caalamka ee milatariga.